قال له هذا سوشيال ميديا waxaan ku arkay wiil yar oo qof haweeney ah jidka dhaafinaya Muqdisho marka wiilku aad u yar yahay haweeney jidka gudubsiiyay marka mootooyin bajaajyo socda iyo qorayaan yarka kuwa maaragtay macmalka ku joojiyay saasoo bajaajti ugu taagay oo ku celiya marka qoryahan oo waxa way ilmaha loo gado oo aan ahayn kuwa rasmiga ah marka qofkii dumarka ayna jidka u dhaafsiiyay dadka marka waxay lahaayeen wiilkii u bagsanayeen inuu qof weyn oo dumar oo jidka dhaafsiiyay qorayna uu ku celiyay mootada marka waxaan is weydiiyay muxuu wiilkan qoray ugu celinaa mootada because magaalada ku arkaa mooto qor lagu celinayo marka state-ka dawladdu waxay qayb ka tahay barbaarinta wiilkaas waxa barbaarinaya dawlad askarteeda ay bajaaj ku celiso qoray laakiin marka ka soo baxa dalka Kenya timaado dalka dariskeena ah askarigu qof qoray kuma celiyo dharkiisu ku celiyaa markii la arko inuu traffic yahay qof walba ka istaagaysa waa ixtiraamaysa macni anaga laakiin labiska kaliya kuma filna qofku waa inuu qor la soo baxo marka state-ka naftiisa marka waxaan ka waday dadka barbaarintooda qayb uu ka yahay state-ka marka waxaan sheegnay guriga waxaan sheegnay iskoolka waxaan sheegnay madrasada ama malcamada dugsiga quraanka qof la soo taqaano waxaan sheegnay masjidka iyo dawladda iyo nolosha guud ee warbaahinta waxa ka imaanaya intaasba qofka waxay qaabeeyaan barbaarintiisa fikirkiisa nolosha soo u arko korriimadiisa waxa soo dhanay saameyn ku leeyihiin